You. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits. barnaamijka dhallinyarada maanta. halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efniyada Geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa duhurnimo sabti ah 8 bisha 8 ee sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono saamaynta uu COVID-19 ku yeeshay ganacsiga dhallinyarada Soomaalida. runtii covid wuxuu keenay saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah, xagga arrimaha siyaasadda ah, xagga biometric ah. inkastoo adduunkii ganacsigii 80% caalamka ganacsigiisii waa isxiray. kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn. ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa uga digay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka eed ku saabsan lacaga la sheegay inay Ruushku siiyeen mintidiinta Taliban si loo laayo ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan. Sidaasina waxaa qoray wargeyska The New York Times. wargeyska The Times ayaa jimcihii qoray in Pompeo uu digniintan u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov intii ay ku guda jireen wadahadal khadka telefoonka ah oo dhex maray 13 bishii Juulaay. sidaana waxaa laga soo xigtay saraakiil Maraykan ah oo aan la magacaabin. waxay jariidadu sheegtay in digniinta ka timid Pompeo ay tahay canaantii ugu horeysay ee la og yahay ee sarkaal sare oo Maraykan ah uu u diro Ruushka, taasi oo ku saabsan eedda loo jeediyey Ruushka. Ruushka ayaa beeniyey inuu lacago ku siiyey xagjirinta Taliban si ay u laayaan askarta Maraykanka ah ee ka howlgala Afghanistan. agaasimaha sirdoonka Maraykanka ayaa jimcihii ka hadlay walaaca la xiriira faragelinta doorashada 2020 ee dalalka Russia, Shiinaha iyo Iiraan. sirdoonka Maraykanka ayaa qiimeeyey in Shiinuhu uu rajaynayo in madaxweyne Donald Trump uusan mar kale ku guuleysan madaxweynenimada, Ruushkuna uu ka shaqeynayo waxyeeleynta ololaha musharaxa dimuqraadiga Joe Biden, halka Iiraan ay ku howlan tahay caraqladaynta hay-adaha dimuqraadiga ee Maraykanka. sidaasina waxaa yidhi Bill Evanina oo ah agaasimaha xarunta amniga qaranka iyo sirdoonka. qoraalkan uu soo saaray Evanina ayaa muujinaya qiimeyntii ugu dambeysay ee hay-adaha sirdoonka Maraykanka ee ku aadan hanjabaadaha ku wajahan doorashada madaxtinimo ee qorshaysan in la qabto bisha November. Shiinaha ayaa u arka Trump qof aan la saadaalin karin, aysanna doonayn inay arkaan inuu mar kale ku guuleysto madaxtinimada, ayuu yidhi Evanina. Shiinaha ayaa sii kordhinaya dadaalkeeda saameynta leh ee ka hor doorashada bisha November, iyadoo isku dayeysa inay qaabayso siyaasadda Maraykanka islamarkaana cadaadis saarto dadka siyaasadooda ay u aragto mid ka soo horjeeda Beijing, ayuu yidhi. dhanka kalena saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa qiimeeyey in Russia ay ku jirto tallaabooyinka dhan ah musharaxa dimuqraadiga ee Joe Biden iyo waxa ay u aragto inay yihiin aragtiyo ka soo horjeeda Ruushka oo taageerayaasha Biden ka imanaya, ayuu yidhi Evanina. waxa uu sheegay in taasi ay daba socoto dhaleecaynta Biden ee Moscow markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka iyo doorkii uu ku lahaa siyaasadda Ukraine iyo taageerada mucaaradka Vladimir Putin ee gudaha Ruushka. dhanka Iiraanna qiimeyntu waxay sheegtay in Tehraan ay raadinayso inay carqaladayso hay-adaha dimuqraadiga Maraykanka iyo sidoo kale Trump ayna kala qaybsanaan ka abuurto Maraykanka ka hor doorashada madaxtinimo. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inoo aqriyay. halkanina waa Washington.
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada. toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa saameynta uu ganacsatada ganacsigooda ku yeeshay xanuunka coronavirus, gaar ahaan ganacsatada magaalada boosaaso. waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona cabdulaahi siciid yaasiin iyo banaadir maxamed axmed oo ka mida ganacsatada magaalada boosaaso. waxaa marka hore barnaamijka kusoo dhoweeyey cabdulaahi siciid yaasiin oo aan weydiiyey sida uu xanuunkan u saameeyey ganacsatada dhallinyarada ah. runtii covid-19 wuxuu ahaa musiibo adduunkan ku habsatay. runtii covid wuxuu keenay saameyn badan oo xagga dhaqaalaha ah, xagga arrimaha siyaasadda ah, xagga biomesterka ah. inkastoo adduunkii ganacsigii 80% caalamka ganacsigiisii waa isxiray. qaar ka mida shirkadaha sida ugu waaweyn sida maraykanka oo kale waxayba gaareen heer ah in ay iska bixin kari waayaan lacagtii karooyinka kiradii lagu lahaa, kiradii guryaha iyo sarfacekii sida utilitieskii inay iska bixin kari waayaan. inahaas iyo ina kale buu saameyn ku reebay baan oran karaa caabuqa covid. marka aan ka hadlayno idinka oo gaar ahaan dhallinyarada magaalada boosaaso ee ganacsiga, saameyn noocey ayuu ku yeeshaba is oran ka dhaha ee xanuunkaasi covid-19 in ganacsigooda ay sii wataan? runtii ganacsigu waa mid isku xiranoo meel hadduu saameeyo annagana waana saameynayaa. waa silsilad isku xiran oo min bilow ilaa dhammaad saameynaysa. ganacsatada annagu waxay nolol kasoo dejiyaa dekada boosaaso. xagga kale oo laga soo dejin karo xagga alaabta laga soo rarayana iyadana wuxuu saameynaya in dekadihii oo kale dowladihii ay dhahaan biomesterkii lama rari karo, laysuma socon karo, laysuma bahalkeyn, taasoo keentay in uu siyaado qiimihii cuntada daruuriga ahayd. inkastoo dowladda ay samaysay tallaabooyin lagu yaraynayo inaysan dadku aysan saameynba aan ku yeelan, oo ganacsatadu ay yareeyaan lacagta inaysan wax ku darin oo dadka loo turo. laakiin haddana suuqa soomaaliya waa suuq ay social bulshadu maamusho oo wax dhexgal ah aysan dowladdu ku lahayn. inahaasiyo in ka duwan bay saamaysa. waxaa soo hadal qaaday in badeecado kala duwan oo idinkaga xayirmay gudaha dalka dibaddiisa ganacsiga ka mid a, haddana intii taalay la qaaliyeeyey. ma waxaad oranaysaa markii alaabtaasi idinka xayirmatay inaad badeecadihii kale hayseen idinkoo ka faa'iidaysanaya xanuunkan iyo isu socodkan aan jirin in alaabtaas qiimaheeda kor loo qaado? sunnaha ganacsigaaba haddii alaabtu yaraato in ay qaali noqonayso, haddii alaabtu ay badnaato oo suuqa baad ay aad ugu badatona inay yaraanayso. marka sunnahiiba ah meel walbana waa ka jiraan oo wax saa isu saameynayo. haddii xagga alaabta yaraato da way iska siyaadaysaa, waa iska suuq. marka inkastoo ay dowladdu xoogaa ay samaysay siyaasad ah inay dadka loo turo oo dadka mar walba la ogaado. dowladdu kolley ma aan maqle ilaa hadda wax ay dowladdu tiri waa kabeynaa, laakiin dadku waa sugaya inay dowladdu hadda dhaqaalo bixiso. dadku mar walba haddii dhibaato dhacdo in dowladdu ay dadkeeda ogaato waa wax hadda meesha ku jira. banaadir maxamed cali ayaa siinaya oo ka mid ah ganacsatada kusoo dhowow barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a. bismillaahi raxmaan raxiim. bismillaah waan dhowahay. waxaan ku salaamayaa bahda v o a 14 boqolka qur-aanka kariimka ah. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxma. waan dhowahay anigoo ka mid ah bulshada ku nool gobolka bari ee ganacsiga puntland ee boosaaso, kana mid ah dadka waxyaabaha daruuriga ka ganacsada. covid-19 wuxuu saameyn ku yeeshay xoog badan ilaa intii uu cariga ka dhacay ilaa hadda uu ku yeeshay saameyn aada u ballaadhan xagga ganacsiga, maciishada iyo isu socodka iyo dhaqaalaha intaba wuxuu u geystay dhaawacaasna waxaan qabaa caalamka oo dhan inuu ka dhacay, oo weliba uu lagu kala dhib badan yahay. waxaa loogu kala dhib badan yahay dadku waa nin haysta wax oo wax u kala hadheen iyo ninaan haysanba. anigu magaalada boosaaso dad ganacsatadeeda ayaan ka mid ahay. daruuriga waxyaabaha ku ganacsada wuxuu igu yeeshay runtii saameyn aanan kasoo kaban karin oo aada u xoog badan.
xagga maciishada ah. waxaan ahay dadka restaurantyada iyo isticmaala ka ganacsada oo makhaayadaha ka shaqaysta. waxa aan dareemayaa dad badan oo cuntada iga cuni jiray inay 3 waqti hal waqti cunaan oo aanan arag. waxa aan dareemayaa inaan dad badan oo doonaya reebreeb ama hamba waxa loo yaqaano oo bacasita oo haysan jiray ama shaqaysan jiray ama dhaqaale magaalada ku tiirsanaan jiray. waxaa COVID-19 uu dadka saameyn ku yeeshay ganacsiga aad xoog badan oo u ballaaran, mana ay helin ganacsato u naxariisata. run ahaantii ganacsatada waxaanu ka dareemaynaa inay maciishada laba jibaareen markay COVID-19 ay maqleen ama uu ka dilaacay wadanka oo iyagoo ka faa'iidaysanaya tamaryarida dadka iyo awood darada. waxa aanu ka rajaynaynay maamulkayagu inuu wax ka qabto. runtii wax badan ayay cadaadin sameeyeen maamulka oo is yiraahdeen wax ka qabto, tallaabooyinna qaadeen, laakiin uma ay dhegdhigin ganacsatada waaweyn. dadku waa 4 dabaqadood, waa dabaqada 1, dabaqada 2, dabaqada 3 iyo dabaqada 4. halkaa waxaa ka baxay sida aniga aan ku sahmiyey ama aan ii muuqata 2 dabaqadood. waayo dabaqada indhibiyada ee danyartu waa ka baxday meesha, waxay ku nooshay nolol yaroo ciriiri ah. run ahaantii dabaqada ku xigtaana waxba ma ay haysato. 2 dabaqadood ayaa hadda dhaqdhaqaaqoodu u socdaa. dabaqada ugu sarreysa oo wax u kala hadheen iyo dabaqada ku xigto iyaga ku xidhan oo higsanaysa. wax taakulayna iyo waxa tabarucaada oo wax garab siinayaana aniga runtii ima ay muuqato. dal iyo dibadna dadka saameyn bay ku yeelato. dadkii dibadda ka jiray oo dadka wax tari jiray oo mushaarooyinka usoo diri biilasha usoo diri jiray ama waxyaabaha siin jiray way waayeen biilashii COVID-19. dadku guryahay ku xirisan yihiin caalamka, ardu caalamka. waxaa laga dhaqdhaqaaqaa wadamada waa wax yaryar. ganacsiga qaar baan weynay, aanu hore u heli jiray aan magaalada Boosaaso weynay. taasna waxaa sabab u noqday COVID-19 inaanu weyno. waayo gaadiidka isu soconayay baa yaraaday, diyaaradihii baa yaraaday oo qoot istaagay, oo isu socodkii baa yaraaday, baabuurtii gobolada ayaa yaraatay. waayo waxaa amarkii la bixiyey bandogii ee lasoo rogay ayaa wuxuu ahaa gaadhiga 2 qof waxaan ka badan inaanu gobolada u kala safri karin, waxna u kala qaadi karin. taas waxay sababtay in dhaqaalihii xitaa gobolada dalka Soomaaliya isu gudbi jiray uu yaraado oo aanu wax kartoon ka badan ama hal loor ka badan aanu soo gudbin oo gobolada u kala gudbin iyadoo amarkii la fulinayo. waa mahadsan tahay Banaadir. maxaa samaysay markii xanuunkan uu saameeyey goobtaada maqaaxida oo ah goob maqaaxi oo cunada bisil lagu iibiyo? maxaa kula gudboonaada marka maadaama aad weyday macaamiil badan oo kugu xirnaa oo goobtaada imaan jiray? wallaahi waxa ila gudboonaaday xaaladayda ganacsiga. waxaa jira restaurantino badan oo Boosaaso ila mid ah oo boqolaal oo la xiray oo suuqa ka baxay oo aniga gaarkayga u badanba oo bendo la saaray. laakiin anigu waxa weeyaan makhaayadayda waxaan ku waday jiitimaad baan ku wadaa si aanay u xirmin oo ay isaga faraato keliya ayaan ku wadaa. dhaqaale kama faa'iido hadda, kamana sugayo ilaa waqti inta isbedelayso nolosha maxay tahay COVID-19 waxay iska bedelayaan. cabdulaahi siciid yaasiin, waa mahadsan tahay. waxyaabaha ugu badan ee ganacsigaaga uu saameeyey xanuunkan COVID-19 maxaa ka mid ahaa? waxyaabaha ugu badan oo covid uu saameeyey oo waxaa ka mid ah in alaabtii dibadda ka imaanaysay oo yaraatay oo aanba soo degeyn. waxaa kaloo ka mid ah alaabtii anaga aan sii deejin jiray gobolada dalka aan naga aadi jiray oo iyaduna istaagay sababo la xiriira bandowga ee dowladdu ay soo saartay, islamarkaana ay ku ilaalinayso dadka caafimaadkooda. maraakiibtii oo aan runtii iyaguna aan imaanayn iyo baayac mushtarkii oo xagga dibadda maadaama aan dibadda aan ku taagnayn anagu aan imaanayno hakad galay. weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda VOA. banaadir maxamed cali ayaan siinayaa. banaadir, ma heshay cid ku gacan qabata tan iyo marka xanuunkaasi uu jiray oo muxuu ahaye ganacsigaaga iyo adigaba dhiirigelin hadday kuu sameyn lahayeen kaabayaal dhaqaale oo kale? maasha allah, tabaaraka. waa su-aal furan. ma aan helin runtii, inta badan ma aan helin. laakiin hal shirkad waxaa jirta oo aanu ku xidhannahay haddaanu nahay haweenka gobolka bari oo aanu ka qaadano lacagta deynta ah ama mar tabarucaada lasoo mariyo korqaadna nagu samaysa oo na kabta. aniga shaqsi ahaan waxaa isaaciday shirkadda la yiraahdo
amal express oo aan ka qaatay lacaga deyme ah ama mara ay noo soo martay lacag kabid ah oo haweeney ila mida oo dhowrihii ay qaateen oo farakutirisa aan saa u badnayn ay qaateen. marka ganacsigayga meelaha ay ka soconayaan ayay ka mid tahay shirkadda amal oo laga qaato dayn inta badan mara ay lacaga tabarucaadii soo maraan oo haweenka gobolada loo qaybiyo. marka ka faa'iidaysigii ugu weynaa oo intuu coffee 19 jiray wuxuu iga soo maray shirkadaas, laakiin cid kale oo gacan igu sii sameey jirin. markii uu arintaasi ay kusoo food saartay ganacsiga uu saameyn ku yeeshay xanuunkan COVID-19 goobtaadii shaqada ee maqaaxida ma xirtay mise shaqadaada ayaa sii waday adigoo u dhabar adeegay duruufaha jira markaas? maya, waan sii waday shaqadayda. habeenna maan xirin, maalinna maan xirin, waayo waxa weeyaan geesigu waxaa layidhi ganacsiga qofka geesiga ah ayaa ka gudba guushiisa guuldaradiisa ka gudba ayaan ku soconayay. mar walba waxaan isku dayay inaan isticmaalo raasmaalkayga si aanay u xirin meheradaydu ay waqtiga COVID-19 ka baxo wadanka ay u gaadho macabiil badan aan u helo. marka anigoo ilaashanaya macabiilkayga iyo kalyantiga maqaayadayda iyo xiritaankana ka ilaalinaya maqaayadayda waxaan u isticmaalayay raasmaalkayga iyo waxyaabaha isoo gala. 2 bilood oo isku xigay oo bendo xoogan uu jiray waan la soo dirsay. way igu dhici jirtay in cuntada 3 meelood meel layga cuno, 2 meeloodna aan daadiyo ama aan dadka faqiirka u gudbo. caqabad way tahay oo waxa weeyaan dee waxaa la yidhi khasaaraha faa'iidada raagta khasaaraha soo degdega ka fiican bay Soomaalidu ku mahmaadaayo. waxaa laga yaabaa in hal maalin oo kale ay ii celiso intaas isoo laabato aan dhaqaalaha isoo kabto. qasab way jirtaa oo markii bendo lagu soo rogo dadku waad waayeysaa. waxa weeyaan way dhacaysaa in aad joojiso cuntooyinka aad samaynaysa qayb joojiso ama waqti waxaa jirtay 3 waqti aanaan waqtiga habeenkii aanaan basamayn jirin cunto. dadkuna ay aadan arkaynba oo ay dadku guryahooda biyaha ku cabayeen iska hoyanayeen. makhaayadahan cid imanaysa aanay jirin waayo bendo baa jiray. salaada maqrib haddii laga baxo bendoga amarkiisaanu qaadanaynay waanu xidhaynay meheradahayaga. dad shaki qabay ma jireen oo ku saabsan in cunooyinka maqaaxyaha lagu sameeyo oo kale? dareenkaasi wuu jiraa oo dadku waa kala shakiyayeen ama way kala cararayeen. aniga ayaaba suuqa markaan u baxo dadka ka cararayay ama dadku iga cararayeen. inta badan aan saameyn ka baqayo inay igu yeelsho xanuunkaasi, taasoo sababaysay inaana meesha 3 qof ama 4 qof taagantay aanan dhex tegaynin. taasoo aan haddaan qof ku arko jid anoo maraya agtayda maraya oo hindhiso iyo waxaan ka dareema qofa inaan ka cararo meeshii aagii ka baxo oo ka fogaado. marka aniga mar la iska kay eegayo, mar dadka aan iska eegayo. dadka shaki baa kala galay. ha igu soo dhicin, ha igu soo durkin, iga mar xagga, iga leexo, hay salaamin. way jirtay oo sababaha COVID-19 ayay ahayd lagu baraarujinayay dadka. hadda waxaa moodaa in xanuunkii uu hoos u dhacay banaadir. goobtaada maqaaxida hadda waa sidee? waxa aan dareemayaa hadda soo kabashaan dareemayaa iyaamaha kan soo kabashaan dareemayaa. dadkii waan dareemayaa inay dadkii soo noqnoqonayaan, laakiin xanuunkiina uu hoos u dhacay. waayo xanuunkaas uu ka dhacay annaga xaafadaha aan deganahay si safmara ayuuna nooga dhacay, annaga iyagana nagu dhacay. karantiin qofka 3 cisho 4 cisho gurigiisa hadduu ku sameeyo kadib wuu ka doorsanayay wuuna soo baxayey. waanuna dareemaynay xanuunkaas dareenkiisa, inkastuu dadka aniga dariska ilaa ama xaafadaha ama sidaan u arkaynay uu saameyn xoogan dadka shaqsiyan markuu ku dhaco dadka Soomaalida oo kale anagu meeshaan joogno uu yaraa saameynta xooga badan oo uu ku yeelanayay. laakiin wuxuu dareemaya qofku 3 cisho 4 cisho xanuun aad u daran oo u dhib badan. waayo waanu aragnay, waa la kulanay. kama aanu soo kabsan karo oo ma aanu hayno hadda al'aanka ma hayno dhaqaalihii aanu heli jiray. waayo devaluationka dhaqaalahoodii ayaa hoos u dhacay. kii mushaar qaadanaya hoos buu u dhacay oo mushaharkiisa waxa waa tari waayey oo badeecadda ayaa waxay hay ah oo kor u baxday. kan lacag loo soo diri jiray loomaba soo diro. dadka inta badan dhaqaale bannaankay ku dhisan yihiin, mana helaan. ma aanaynu helayno waayo dadkan xitaa dhaqaaluhu naga galay waxba kama helayno, nagama soo galaan. dhaqaalaha iyagu 3 meelood sidii aanu ahaan jiray 1 meel baan hadda ku tiirsannahay. 2 meeloodna way degeen waa maqan yihiin. marka COVID-19 waa mucjiso adduunka lagu soo saaray weeye. ilaahayna waxaan ka rajaynayna inuu ka kor qaado oo ummadda ilaahay uu ka kor qaado. gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay.
ma jiraan dhalinyaro suuqa intay ka ganacsanayeen xanuunkan uu saameyn ku yeeshay ganacsigoodii sii wadi waayey sidaasi ku joojiyay ganacsigoodii? haa, way jiraan dhalinyaro badan baa jira ee uu saameeyey dhaqaalahooda covid, islamarkaana meherhoodii isxireenoo. marka waxaan codsan lahayn anagu haddaan dhallinyarada u hadlo in dhallinyarada la tamataabiyo oo wax loo taro. hay-adaha caalamka, kuwa NGO-yada, waxaan codsan lahaa dowladda, waxaan codsan lahaa in dhallinyarada la tamataabiyo oo wax loo qabto si ay noloshoodii ay wax u soo taraanoo ganacsi dambe ay u abuuraan. aad baanu codsan lahayn. way ka soo kaban karaan, laakiin waxay qaadanaysaa in wakhti badan bay qaadanaysaa in ciwad loo sameeyo, in ay wakhti bay qaadanaysaa hadday helaan dhaqaale iyo cid tabantaabisa. gabagabada barnaamijka, fariintaad ugu dambeysa oo aad u soo jeedinayso ganacsatada iyo maamulka puntland ee ku aadan xanuunkan sida uu ganacsiga dhalinyarada uu saameeyey? gabagabadii waxaan oran lahaa dowladdu dadkeeda waxaa tarto, dowladdu sanduuqa ha furto, ha la hadasho hay-adaha caalamiga ah, ha ka codsato in dadkeedii uu xanuunku saameeyey inay wax tadho. dowladda federaalka markii ay samaysay tallaabooyin waxay samaysay ee dadka ay dhaqaalaha ay waxuun ciwada ay u samaynayso oo ay canshuur dhaaf badan aad u samaysay. marka waxaan codsan lahayn in bal dadkii ay saameeyey covid inay dowladdu, ganacsatada iyo dowladba ay wax soo tadho. guud ahaan dhegaystayaal, toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan uga hadlaynay saameynta uu ganacsatada magaalada boosaaso gaar ahaan dhallinyarada uu ganacsigooda ku yeeshay xanuunka corona. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso. intaa barnaamijka lamid a ku kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. aad buu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha. nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya. mahadsaned maxamed bashiir. aan ku horeynay kooxaha real madrid iyo yuventus ee ka kala dhisan dalalka sbain iyo talyaaniga ayaa xalay ka haray koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii ay khasaaro kala kulmeen ciyaarihii ay la dheeleen kooxaha manchester city iyo lyon. kooxda manchester city ee dalka ingiriiska waxay ciyaartii ay xalay la dheeshay real madrid ku badisay 2-1. sidaan oo kale ayay city 2-1 ku garaacday real madrid is-araggii hore. sidaas daraaddeedna isugeynta labada ciyaarood waxay manchester city ku soo baxday 4-2. kooxdan uu leeliyo macalin Pep Guardiola ayaa hadda u gudubtay wareegga 8. ciyaartii xalay oo ka dhacday magaalada Manchester ayaa waxaa City goolasha u kala dhaliyay Raheem Sterling oo dhaliyay goolkiisii 100 ee uu kooxda u dhaliyay iyo Gabriel Jesus oo u dhashay dalka Brazil. goolka kaliya ee Real Madrid waxa uu keenay ciyaaryahanka dalka Faransiiska Karim Benzema. waa markii ugu horeysay oo macalinka Real Madrid Zinedine Zidane uu ku haro wareegga 16 12 jeer oo uu wareeggan leeyay. 3 jeer ayuu koobkan ku guuleystay Zidane isaga oo tababar u ah Real Madrid. ciyaar kale oo xiiso lahayd ayaa magaalada Turin ee dalka Talyaaniga xalay ku dhex martay kooxaha Juventus iyo Lyon. isaragii hore waxaa 1-0 ku soo badisay kooxda Lyon ee dalka Faransiiska. sidaas daraaddeedna Juve waxay u baahneyd in ay ugu yaraan 2-0 ku badiso, balse taasi ma dhicin oo waxa ay ku adkaatay 2-1. Juve labada gool oo uu dhaliyay Ronaldo kuma filan. Lyon ayaana sharciga xagga farqiga goolasha ugu soo baxday wareegga 8. kooxda Lyon waxay ku aaday hadda wareegga 8 kooxda Manchester City. Juventus oo 9 xilli ciyaareed la soo dhaafay si isku xigta ugu guuleysatay horyaalka Talyaaniga ee Serie A ayaanan koobka Yurub qaadan tan iyo 1996. tababaraha kooxda Juventus Maurizio Sarri ayaa hadda loo yaabaa, waxaana booskiisa lala xiriiriyay macallinkii isaga ka horeeyay Massimiliano Allegri iyo tababarihii hore ee kooxda Tottenham Pochettino. caawa ayaa 2 ciyaar oo xiiso leh ay jiraan, waxaana ka mid ah ciyaaraha dhici doono tan magaalada Barcelona ee dalkaasi Spain ku dhex mari doonta Barcelona
iyo napoli oo ka socota talyaaniga. sarigii hore oo ka dhacay magaalada nabolis waxa uu ku soo dhammaaday 1-1. ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka iyo kooxda Chelsea oo ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. lugtii hore Chelsea iyada oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa loogaga badiyey 3-0. caawana waxay marti u noqon doontaa kooxda Bayern Munich. natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasina dib ayaad ugu maqli doontaan idaacadaheena soo socda. intaasina waxaa nagaga dhan xubintii ciyaaraha ee duhurnimadan. waa tahay intaasi aynu ku dhaafno xubintaasi cayaaraha. Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinayay. dhegaystayaal, markana aynu ku nasanno qaybihii suugaanta. waxaan idinku soo maqan codka allah u naxariistay Cumar Nuur Cabdulle.